أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آديات بندي وذا السلامية ولا الله قالقة. waxa halkan aan idinku soo gudbinayaa qisad ka dhacday iyada laftigeeda Saudi Arabia sidii qisadii ka horeysayba qisadan waxa ku dhacday gabadh Sacuudiyada iyada ayaa qisadeeda maaragtay soo gudbisay oo meediyada soo gelisay qisadan marka waxa ay u dhacday sida tan waxay tiri waxa aan lahaa maaragtay oday amba xaas baan ahaa muddo 4 sanadood waa inaan dhalinyaro ah oo la guursaday oo 4 sanadood maaragtay qoys lahayd amba guri lahayd amba reer lahayd amba oday lahayd ma sha Allah tabarakallah waxay tiri odaygayga waan isfahansanayn aad iyo aad baanu isu jeclayn farxad ayaanu ku noolayn waxay tiri waxaanu ahayn laba qof oo waqti wanaagsan wada qaata isla dhoofa isla dalxiisa maxay hayday aad iyo aad isu fahansano dadka qaar baa markay isguursadaan saaxiib noqdo oo isfahma ما شاء الله تبارك الله وانا سيده لوgu talagalay zawaajka marka laba qof oo aad isu fahansan bay ahaayeen ma sha Allah laakiin waxa jirta dabcan nolosha ma wada dhameystirsan maaragtay mar walba meelba waxba maqan marka waxay tiri waxaanan haysanin awlaad 4 sanadood ilaahay awlaad maartay dhuriyad saalixa ilaahay lagu arsaaqin waxay tiri markaasi waxa dhacday in aan anigu labadooduba dhakhtaradii ay tagaan ay isbaaraan markay isbaareen dhakhtaradii waxay sheegeen xaasku in ay maaragtay ay cilad leedahay maaragtay amba xanuun oo ay u baahan tahay in la daweeyo marka dawooyinkii iyo hawlihii maaragtay daaweyntii ayaa u socotay isla waqtigaasna waxa ay marka ninkeedu oran jiray markasta adiga ayaa wax walba igaga filan adiga ayaan ku jecelay adiga wax walba iga muhiimsan maaragtay hays murjinin ha ka warwarin sidaas ay ku noolaayeen nolosha farxadda leh ma sha Allah tabarakallah haddana waxa laakiin dhibaato ahayd qoyska uu isagu ka dhashay family-ga ninka ayaa mar walba bacdamaaba gabadhii ciladii lagu sheegay mar walba waxa ay ka hadli jireen arinta uurka miyaanad uur qaaday miyaanad ma garanaysa sidii wax dhibsanaya oo kale khaasatan waxay tiri gabadh ay ninka walaalayihiin oo dumaashideed ah amba walaasheed oo maaragtay ninka ay walaalayihiin ayaa aad iyo aad maaragtay arinta uga hadli jirtay oo waxay tiri igu dhibaateyn jirtay waxay tiri waxaan dareemi jirayba inay nacab tahay oo marka aniga iyo odaygayga oo faraxsan oo qoslayna ayna aragtaba markasta arinta waxaan ka wadaa uurka ayay soo dhexgelin jirtay meesha si aan u murugoodo bay tiri waxay tiri markii dambe maalmii dambe waxaan arkay isbedel inuu ku yimi odaygayga inuu marar badan walaashii uu la hadlayo oo telefoonkoodii iyo wada hadalkoodii batay oo haddana ay marmar badan gurigeeda ugu yeedho oo maalin walba gurigeeda ay tira kaale maaragtay qahwaha amba kafayga ay cabaan maaragtay dhaqanka ah Sacuudiga kaale qahwaha gurigeyga ka cab oo markasta uu u tagayo markasta uu la hadlayo wada hadallo waxay tiri aniga laga qarinayo ayaan dareemay inay meesha ka jiraan waxay tiri shaki ayaa i galay ya taasina waa dareen dumarka ku jira markuu wax khalad yahay ya dumarka waxa la yiraahdaa dareen lixaad bay leeyihiin markiiba waxbay fahmaan marka waxbay fahantay gabadhani way shakiday marka waxay tiri odaygaygi ayaa maalmaha kamida shaqadii markuu ka yimi ayaa waxay tiri uu qadeeyay waxa caado wahayd inuu iska yara jiifsado maaragtay qadada kadib waxay tiri markuu seexday ayaan telefoonkiisii qaatay waxay tiri waan baaray telefoonkiisa waxay tiri kood kuma xidhi jirin oo wuxuu telefoon ii furan xilli kasta hadaan siraa eeg uu iska furnaa yani nin wax qarqariyo oo wax iga qariyo u baahan inuu wax iga qariyo mu ahaan jirin laakiin waxay tiri waxa aan ku naxay telefoonkiisu inuu kood lahaa maaragtay amba number sira oo lagu furayo waxay tiri numberkii ayaan dhowr number ku tijaabiyay waxa markii ugu dambeyntii aan ku tijaabiyay numberka albaabka gurigayaga maaragtay ayaan ku tijaabiyay numberkiiba ii galay bay tiri waxay tiri waxa aan markiiba raadiyay xiriirkii iyo text message-kii amba qoraaladii ay walaashiisan inacab bay tiri ay isdhaafsadeen markiiba waxaan helay meel ay walaashu ay qoraalo ay isku dhaafsadeen oo ay sawir ay u soo dirtay ayaan arkay sawirkii ay maaragtay WhatsApp-ka ugu soo dirtay haddaan arkay waaba sawir qurux badan gabadh aad iyo aad u qurux badan oo dhalinyaro ah sawirkeedii weeyaanba kadibna qoraalkii ay isweydaarsadeen baa ku qoran gabadhani waayo iyo gabadha quruxda badan maxay ahayd buu yiri waxay ku tiri gabadhan waa gabadh aan maaragtay raba inaan ku baro oo aan ma garanaysa aad reerkeeda ka doontid barasho kale ma aha laakiin reerkeeda aad ka doontid oo guursatid wuxuu yiri waan rabaa waa gabadh aad qurux badan awalna wuxuu oran jiray sawirka
qoraaladii ka horreeyay bay tiri waxa ay lahayd walaashu waa inaad guursatid isaguna wuxuu lahaa gabadhii way isdaweynaysaa bal u kaadi dawooyinka maaragtay inay u shaqeeyaan baa laga yaabaaye iyo maxay hayday waryaa dadkii waqti kula guursaday caruurahoodu iskuulay dhigtaane waqti badan baad u samirtay waa inaad guursatid marka isagu wuxuu lahaa maya aan u samro oo aan u yara kaadiyo dawooyinkaas waa intaas ay noo shaqeeyaan laakiin markii ay sawirka usoo dirtay bay tiri waxaan arkay inuu markiiba uu yidhi waayo waan rabaaye maaragtay ii doon gabadha deetana waxay ku tidhi dhegeyso xaaskaaga waqtiga kulaylaha ee maaragtay fasaxyada la galo fasaxa waxay reerkeeda ayaa u tagtaan markaa reerkeeda u dir reerkeeda faamiligeeda hooyadeeda iyo aabaheedu markaa magaalo kala degan hala qaadata fasaxa intaasaynu ka faa'iidaysanaynaa xilligaasaynu gabadha aan kuu doonayaa doonitaanka iyo meherka iyo waxa dhan mar baynu ka wada dhigaynaa intay maqan tahay si aad u aqal gashidba kadibna adigoo gabadhii guursaday oo meherkeedii waxeedii hawsheedii dhammaatay marka ay timaado dee khalaas waxa weeyaan wixii uu dhacayba waxa weeyaan walaalay in badan baa ku samray adiga ayaa sababtii noqday awlaad maaragtay aynaan dhalayn aniguna maaragtay waan ku samray dee labadii naxaas waan isla kiin qabaya ayuun baad odhan marka wuxuu ilaahay ku xalaaleeyay ku tiri walaashu marka way ku dhiirigelinaysay qorshana way u samaysay in gabadhan reerkeeda loo diro waqtiga samarka amba waqtiga kulaylaha inta ay maqantahay laga faa'iidaysto gabadha loo meheriyo kadibna maaragtay sidaan soo sheegayba dee hadhowto xeeriya fandhaalba gooray kala dhaceen maxaaba waxa weeyaan wixiiba u dhacay walaalay raalli ahow kadibna waxa ay tiri markaan qoraaladii akhristay ee aan fahmay arrintii oo dhan bay tiri sawirkii waxay tiri telefoonkayga ayaan u diray isagana telefoonkiisii intaan xidhay ayaan meeshiisii komadiinka u saaray ninkii waxay tiri waan ooyay hiq muraara dilaac waxay tiri markuu hurdadii kasoo kacay ayaa waxay tiri wejigii aan iska maydhay biyo aan iska mariyay wejigii waxay tiri wuu dareemay wuxuu igu yidhi maxaa kugu dhacay hebloy wuu fahmay marka in uu wax dhaceen oo aan wax arkay iyo inaan wax ka shakiyay wax maqlay ayuu isiri way fahantay maxaa dhacay waxay tiri waxaan ku yidhi waxba maya maxaa dhacay maxaad la ooyeysaa waxba waxaan jeclay inaan awlaad kuu dhalo laakiin wax gacantayda ku jira ma aha baan ku idhi bay tiri wuxuu yidhi adiga wax walba igaga filan waxay tiri laakiin doorkan run muu sheegahayn waayo wuu isbedelay waan dareemayaa bay tiri inuu isbedelay oo niyadiisii meel kale ay jirto calaa ayi xaal waxay tiri waxaan ku adkaystay inaan ka qariyo waxaan la ooyayo waxaan is idhi haddaad u sheegtid inaad aragtay qoraalka telefoonkiisa ku jira iyo wadahadalkii isaga iyo walaashii dhex maray waxa uu odhanaya dee khalaas haddaad ogaatay walba adaa lagaa qarinayay iminkaan gabadhii u tagayan soo mehersanaya markaa waxay tidhi wuxuu aan iska dhigayba khabar maafish waan qariyey si aan bal arrintan uga salgaadho oo aan xal helo waxay tidhi maalinkii dambe waxay tihi waan fikiray maxaad samaysaa tala igu caddaatay ninkiina ma rabay inaan qabsado oo aan maaragtay arrinkii u sheego waxay tidhi waan qorshaan dejistay markaa qorshe ayaan ka dejistay markaana waa marka la yidhaah ina kaydahunna cadiim maaragtay makriga dumarku marka ay qof dumari kuu fikirto waa finish waa xaaladaas waa xaalad adag marka waxay tiri waan u fikiray ninkan kadibna go-aan ayaan gaadhay bay tiri go-aankan gaadhaan ku socday waxay tiri maalintii dambe xilligiisii markuu qadeeyo waa kan ninkan iska yara jiifsanaya markuu jiifsaday ayaan telefoonkiisi intaan soo qaaday dee iminka koodkii raadin maysa way taqaanay nambarkii gurigayga intaan ku dhuftay ayuu waxay telefoonka ii furmay waxay tiri waxaan ka soo saaray telefoon nambarka gabadha odaygayga dumaashidayda gabadha maaragtay odaygayga ay walaala yihiin ee aniga waxay tiri godkan ii qodaysa waxa aan soo saaray nambarka telefoonka odaygeeda waayo waxay tiri odaygayga de ways yaqaanin waxa weeyaan baa walaashii ninka qaba markaa telefoonkiisa uu haystay anna magaciisa waan aqaanay magacii baan raadiyey markiiba ninkii telefoonkiisaan soo saaray bay tiri ninka telefoonkiisii markaan soo saaray waxay tiri markaasaa aan qortay oo aan telefoonkayga ku qoray kadib telefoonkaygii odaygayga komadiinkii baan ugu celiyey kaanamaa inaan waxbaba dhicinba telefoonkii waxay tiri markii dambe markaan jaanis u helay ee odaygaygu uu shaqada ku maqlaa maalintii dambe ayaa ninkii aan maxay hayday aan la hadlay salaamu calaykum assalaam waa heblaayo hebel xaaskiisii wuu yaabay ninkii haye maxaa dhacay walaal khayr insha allah maxaan kaa caawiyaa marka wuu garanayaa walaashii ma garanaysaa walaalkeed waxaan ka wadaa ninkan lala hadlay xaaskiisa
walaalkeed inuu gabadhan qabo uu gartay laakiin uu yaabo wuxuu yiri talo maxaa maanta ay gabadhan kuula soo hadashay marka wuxuu yiri khayr insha Allah maxaa dhacay markaas waxay ku tiri in wax kale ma aha waxa aan rabaa in aan maaragtay in sawir baan u diray sawirkii gabadhan u diray sawirkii uu arkay waxay tiri uu igu soo celiyay markuu igu soo celiyay ayuu yaabay waa maxay gabadhan quruxda badan ma adigaas gabadhani ma aniga ma aha waayo de way xijaabtaan wajigiiba qariyaan nin ajnabi ka ah wajigeedii ma arkayo marka inay iyadii tahay xitaa ma garanayo marka wuxuu yiri ma adiga gabadhan waa maxay gabadhan aad ka quruxda badan waxaan ku yiri bay tiri aniga ma aha waa gabadh qurux badan oo kale oo aan aqaano waxaan kula jeclaystay gabadhan inaad guursatid wuu yaabay wuxuu yiri maxaa danta kuugu jirta ay tahay waxaan ku yiri bay tiri dan iigu jirta gaari ma jirto laakiin waan kula jeclaystay gabadhan quruxda badan markaan arkay in aad guursatid wuu yaabay markaa ninkii laakiin wuxuu ahaa nin indha dheer oo dumar badan oo guurguur badan waxaanu ahaa nin maalqabeen oo ilaahay wax siiyey ninka maaragtay dumaashadeed qabay markaasaa ninkii uu yiri waa heer sare waaba gabadh qurux badan gabadhan oo kale yaaba heli karaba telefoonkii waxaan ku siiyay iyo adresskii reerkeeda ayaan siiyay inantaasi reerkeedu waa kuwa halkaas degan yihiin telefoonkoodii waa ka adresskoodii waa ka haddaad rabtid inaad doonatid waa inan fiican sideedana mujtamaca sacuudiga hooyada ninka iyo gabdhaha walaalihiisa ah ayaa u recommend gareeya amba u soo bandhiga gabdhaha quruxda badan ee la jeclaystaan wiilkooda bacdamaaba ragga iyo dumarku ayna si toos ah ayna xiriir u yeelanin oo mujtamacaas uu yahay mujtamac islaamiya sida badanba imka inkastoo wax badan iska bedbedelayo haddana taqaaliid iyo dhaqan baa jiray oo maaragtay jireen ah oo welina jira marka badana qof dumara ayaa u recommend garaysa amba u soo bandhigto tira wallahi gabadh fiican oo saasa jirta xaafad heblaay maaragtay reer hebel amba hebel inantiisa amba reerka jaarkeena amba wax noocaasa marka ninkani inkastoo ina gabadhan isaga maxram u ahayn haddana markii ay de dumarku iyaga is arko is yaqaana ay ku tiri gabadhan aan kula jeclaystay ninkiina uu ahaa kolkiisa horeba nin iska naaga jecel de mabuba kasii fikirinba gabadhiiba u cararay reerkeedii wuu usoo fadhiistay gabadhii waxa uu weydiistay in la siiyo oo uu guursado reerkii way siiyeen inantiina oo ku faraxday oo way guursatay sababtoo ah ninkan waa nin maalqabeena oo lacag badan leh sidii ayaa ninkii uu ku guursaday waxay tiri markaa dumaashiday biyihii godkeeda ugu soo galeeno horaa loo yidhi god ha qodin haddaad qodidna ha dheerayn ku dhici doontidna mooye marka waxa weeyaan dumaashiday gabadhii ay rabtay inay odaygayga u dhisto ayaan anigu odaygeeda u dhisay bay tiri sidii ayuu ku guursaday kadibna dumaashiday maxaabay aniga igu mashquuli bay tiri iyada aya gurigeedaba dhibaatadii ay ka bilaabmatay halkiiba waxay tiri iyadii waxaaba ku mashquulshayba ninkan la guursaday ninkeedii iyo gabadha guursaday ayaaba ku mashquulshayba oo maaragtay dagaal iyo dhibaato ay ku bilowday anigiina way iga leexatay bay tiri taa waxa ku ziyaada ilaahay subxaanahu wa ta'ala daaweyntii iyo dhakhtaradii aan ka daba wareegi jiray uu igu guuleysiyay bay tiri waxay tiri saas ayaa ilaahay uur igu siiyay oo waxay tiri aan maaragtay uur qaaday waxay tiri noloshaydii farxadda ahayd ayaan maaragtay aan ku sii noolaaday maasha Allah tabaarakallah markaas waxa weeyaan qisadani waa qisad runtii makriga dumarka iyo dadku markuu qof aan ku dhibaatayna adu dhibaato aad la raadisid waxa weeyaan adigay kugu soo noqon kartaa dhibaatadu arintaasi ayaan jeclaystay runtii oo casharo badan ay ku jiraan runtii sideedaba waxa weeyaan awlaada ilaahay baa bixiya zawjku runtii haddii gabadhiisa cillad lagu sheego xaq buu u leeyahay inuu guursado haddii gabadha zawjkeeda cillad lagu siiyo xaq bay u leedahay maaragtay lagu sheego la yidhaha ma dhalayo qofkani xaq bay u leedahay inay amba fasax ka qaadato amba ay iska furto waxaase ka qurux badan in laysu samro in maaragtay qofkaaga aad daweysatid inaad nolosha maaragtay ayna noqonin uu noloshu yani guur meel ku gaadh ah iyo guur maaragtay si fudud looga baxayo ee labada qof ay isu samraan ayaa fiican khaasatan maaragtay zawjka oo dee furiinkiiba gacantiisaba ku haya marka waxa weeyaan arintaasi haddana waxayna tusaysaa qofkan dumare iyadu ma jeclaysanayso in waxa iyada lagu sameeyo iyadu maanta 4 sano haddayna wax dhalin wax jeclaan lahayd oo weliba dawo u socoto oo rajo jirto oo aan la odhan weligaaba ma dhalaysid maba la odhanba gabadhan raximkiiba kuma jiro amba raximkiiba ma shaqaynayo lama odhan waxa lagu yidhi cillad baa jirta daaweyn ba u baahan tahay marka maxaa ka xumaanaya ninka haddii uu u samro 4 sano 4 kale xataa hadduu kusii daro 10 sano hadduu xataa kusii daro maxaa ka xumaanaya isagu waa nin xilli kasta ayuu dhali karaa laakiin waxa weeyaan dadka qaar ayaa waxay jecel yihiin qoysaska inay soo dhex galaan dumaashiyaasha iyo sodohaha runtii 10 ayay u tahay waxa fiican inankaaga waan ogahay waxaad la jeceshay walaa waxa wanaagsan amba
amba walaalkaaga waxaad la jeceshay wax wanaagsan laakiin haddana saasay tahayna naftaada meesha adigu amba inantaada aad u qaadi lahayd amba adiga oo haweenaya waxaad adigu jeclaan lahayd in maaragtay amba adigoo haweenaya waxaad jeclaan lahayd in ay kugu dhacaan amba lagugula dhaqmo unbad adiguna ay fiican tahay inaad dadka kula dhaqantid makriga dumarka iyo qofka dumari hadday kuusoo jeedsato yaa walfaha siday isaga kaa celinaysana casharkaasaynu ka dhiganayna waa yartaasi maalin labaadkii waxay samaysay ninkii gabadha qabay ayay dee u guurisay ya marka waxa weya waa qisad cajiiba runtii inta aynu ku kulmi doono barnaamij kale iyo casharo kale iyo qisas kale khayr iyo barwaaqo badan ayaan idinkaga tegaya waxaan idin leeyahay fi amaan illah astawdactukum allah alladhi laa tadiic wadaa'ic wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu